kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janaalkan Kulmis Media ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janaalkan Kulmis Media, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe saarato, furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. war degdeg ah oo hadda na soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in Xasan Mustafa Isaaq oo loo yaqaano Xasan Toob in xabsiga la dhigay. hay'adda sirdoonka NISA ayaa Xasan Toob xabsiga u taxaaday, halkaasna su'aalo ku weydiinayso. sababta Xasan Toob loo xiray ayaan markaan xiriiro badan aan sameynay waxaan ogaanay in Xasan Toob sababta loo xiray ay tahay shakhsi asaga la shaqeyn jiray oo hay'adda sirdoonka NISA ay ku haysato in uu yahay Al-Shabaab. shakhsigaas oo ahaa Ziido Lugeel oo horay ay NISA ay gacanta ugu dhigtay, haddana ku jiro gacanta NISA. Xasan Toob ayaa asna soo galay raad ah in uu wax la ogaa ninkan la shaqeyn jiray ee Ziido Lugeel, haddana xarunta baarida ee NISA ayuu Xasan Toob ku jiraa. halkaas ayaana su'aalo ay ku weydiinayaan ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed. wixii warara ee ku soo kordha kiiska Xasan Toob halkan ayaad kala socon doontaan daawade. waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawata muuqaalkan daawade. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janaalkan Kulmis Media, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe saarato, furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.